فقش جاي فقش جاي فقش تتبع الغساء وحي قعانو قادر يجيون وحي قبل كده oo siday u gubaysay siday u dishay siday ula dagaalantay aan cidna ula dagaalan waxa uu horeeyay makartaba waa dadka daarad baa lagu sheegay daarad bay faqad haysan iyaga uu fa daaradna may hayn cid kalena may hayn waxay hay isaagna may hayn hawiyana may hayn waxay hayeen inta damaraaca iyo indigi caba oo ku shaqeeyay oo cid walba isku فقجات كتكانا ما تكحوزوسا سيري ما يسبقها نيوم بينو شيخنا من ريحان بالي يجا ugu wanaagsanaa wuxuu markii xamal qura lagu yaa amar kama tabashilo inta qura hel lagu yaa iyaga isku kalsoon han oo ay isku qabeenayaan iyaga la dhibayna han isku haleynay qabeeniyo isku haleynay han wax kasta han عدي وكل جواوجد مالنتا وحدعان عدي وعرس يجها فقش جاي حي مركز ياو أفراد به ده مرة أفميسارة درجة راع أن أقل من درجة أن أقل من ربع ده مرة أنت أتيحي يوينكو شقيتني سيوينا ما ده درجة راع ده مرة الله من هاي لاقي كسر waxay ka hayaan waxay raacay cid ay hayd mid maalintii ugu dambeeyay maalmihii ugu dambeeyay aragiis inankiis masrax ayaan ka waalidayay anigu maxamed siyaadan lahaa war maxaadinka suuqa marada uga furo waa bukaayo waxaan soo dhakhtar baan u diray maxay hayday wuu nasanayaayo inankii waa uu nasanaya wax si kastoo dirsada kaga qaadaa ka helin cidu nasteex waxa mid ninka maalinta uu yiraaho waa kugu taagan yahay waa ka sii jeeda iskuma haleyn kartid ka saacadkiisu cid ka saar inankiisa ma saxnaan faqash marka maanta halkan fikir xikmadda ilaahay maanta 7 sano dabadeed 10 sano dabadeed ilaahay la fahan intuu dad u soo diray leeynoogu soo saaray aynu maanta halkan u tubanahay xikmadda hadii isugu noqdo wixii naga maqnaaba lagu tusay maxaa inaga maqan waxa weeye dib u fadhiisan yaa loo looga aray aniga ma layga aray suuda cabdiraxmaan yaa looga aray ee waxaan dhigi ma xikmadda laynoo soo saaray inaynu dhiigii ku daro la tusri fil qatl innahu kana mansura kuwaasi kaagama baahnaa ilaahay baa waaray waa aragteen ragga aynu maanta ku hoynay waxay joogaan iyagoo aad margiyo xuntii aynu sheegi jiray moodaayo ay suuqada ay daba dhoogalayaan mood awrisku xiriirtada mood ayay maanta caalamka qaahire iyo Nairobi iyo dhulka wada maraya oo aad u naxaysaa yar magkuwa warba waxaan leeyahay waxay warba abaad ayaa warma waxay rag mooday ayaa dadka wax loo aaray waxaynu cid aynu ka aargoosanaana ma hayno cid looga aaraana ma jirto cid godobteeda aynu ku ognahay oo qabtaana mid af miisaan meel walba joogo cid walba inagu kuwaasi ay ku jireen waxa laga yaabaa kuwii u xigay inay hayeen kuwii soo sheegay xariiq ku soo xigay ma xikmadda laynoogu soo saaray lafahaas inaynu maanta yaa loo aray waxa weeye wax ku barano war maxay ku dhintay war faqash maxay hay war faqash maxaa keenay war maxay halkaa ku gaadhay raggan maanta markiyo xunta la sheegayo waa maxay haybaday huwanaayeen maxay hay garabkay lahaayeen muxuu ahaa meeshay naga soo galay halkaynu ka dhimanay maxay nagu kan sawirkaas xaguu inaga dhacay balaayadaas abweyne maxaa guudkay naga saaray sidee ku yimi taa weeye inaynu isweydiino si aanay dib ugu dhicin mar laba taasaa maanta inaynu ka fadhiisanno oo ka fakirro oo ka noqonnayo marka ila fakira bal ila fakiro afweyne muxuu ku yimi afweyne wuxuu ku yimi dan aydaan aqoon dantiinoo aydaan aqoon caleemaa u sideen maalintii waari yani hadalka qaar iga qaadanay aninkii meesha ka qabsaday haddaan ahay ciilqaban ku ciilqabo meeshii la iga qaaday ha iga qaadanin waxaa doonayaa maanta inaan objective
بصفة محاي هيدي صراحية إن أنا قلت الماما وحيدها دنتين نقف عاشق غير لك ولي أنت اللي فريسو وار محاي نودنا ياي ما قرانا إلا دنتين ومحاي تاهي ملي أنت أينا قرانا إلا دنتين إيه إنه قلبه أما في ميسار نمو أما قبيلكي أما محاي هيدي أدوكو دنتانا يرفلسو أي أنت الوحان دنتين ياهين دبت شوقنو بين عليه كي تليين نقول نقطة أوضال وجائرة مواي أنا أقول نقول مواي بلن بان دين كتاب مالين تاني دين ودي كريواية إذا هقامين كريواية وإذا كتغير لكن قول إذا كورورين ماي إذا كرباش ماي وإذا حاول يرتاح يصير ليدين كرباش ويحاول يرتاح يصير ليدين الدستة ويحاول يرتاح يصير هقام ليدين كحدار ويحاول يرتاح يصير تاسو كلام سمايان المدح بريتو آديات بيحاول يرتاح تاسو كلام إن بريتو للمدح ويدفع ما كتاق ليلة يا سمايان waxaa maanta marka fakirka maanta idiinayay wuxuu yahay sideeba maxay ku dhacday maxaanay kuna dib inoogu dhaco maxay shalay ku dhacday maxaanay dib sal mar dambe ugu dhici karin taa weysa la isweydiinay waana jawaabtu mid qura wey shalay to ayaa halka la doortay boqolkiiba 75 baa ragii boodka bixinayay meesha markaynu ka soo baxnay baa rag yiri waraabahaan iska ilaalin waraabaha iska ilaalin warma waraabaha markii dooranayay 75 miyaan sax maxaan ku akhri maxay haayeen maanta kala kii shalay la dooranayay intaas isu raacday dooratay iyo waraabaha maanta la leeyahay leedinka celiyo muxuu kale dadan raa saxabka maxaa la ii saaraa reebel maxaa loo qabanayaa aniga maxaa la ii siinayaa hadda inta arrinkeenu ka iyo dawladnimadeenu ku dhisan tahay dadamo ama mid qabiil mid beeleed mid qof mid qawiis markii intay ku dhisan tahay taasina taasaa ina huran beeshareel dhacday bedina dhici doonta saad dambena dhici doonta israaciin dawaabo soo goostigeenuna ma ahayn barasho aynu soo barannay inaynu shalay 60kii qalad samayno shalayna waxaynu ku tagnay jibbo maantana waxaynu ku nimi jibbo meel ina geynaysaa ma jirto jibbo taa weeye dhaxalka jibbo iyo fikrad darro iyo iska orod iyo tala la'aani waa taas weeye maxay ahayd dhaxalkeeda taa weeye dhaxalkeeda kuwaasi maanta idinkama baahna waa idinku celcelinayaa idinkama baahna inaa u arta idinkama baahna inaa u oydaan meel wanaagsan oo kaga raysteen meeshii ay joogeen bay joogaan maanta rag baa u raran waxay ku raraayeen oo inta laga rogay heeriyadii dambi ahayd dhib ahayd waxay galeen ahayd mid walba inta laga rogay baa rag ku raran yahay maanta oo moodaa maxay ahayd xamliga ilaah uu ku saaro lama kici waayo awrkii kici kari waayo dameerkii la dhutinaayey ma ogi laakiin rag baa ku raran yihiin maanta ku amarkiya xudaan ku sheegay waxay la luudayaan aad moodaa isku xubisay waxay la luudayaan idinkama baahna maanta idinka uga baahan factabiruu ilaahay factabiruu ya ulul absar waar wixii wax garanayo cibro qaado waxaad aragto cibro ku qaado buu cibro qaadasha maanta innaga u baahan inaan ku cibro qaadan waynu wax ka qabanay dib bay u dhacaysaa haddaynu saynu maanta u socono si fakir la'aan qiimo la'aanta diinteennii iyo qiimaheennii iyo qadarkeennii oo dhammi uu ku xidhan yahay mijintaada intaynu la caqli nahay kulligeen reer soomaaliyaal oo dhan meel kastoo joogo mijintaada inta caqligeennu ku xidhan yahay ee wax walba ina gelinaysa